waxaa loogu yeeri jiray oo lagu magacaabay Shakespeare-ka Afrika legendka hal abuurkiisu iyo gabayadiisu ilaa alaanka milyan qof wax ka badan qalbiyadooda ku dhex nool yihiin Maxamed Ibraahim Warsame Hadraawi run ahaan ereyadiisu ma ahayn gabay kaliya waxay ahaayeen wax u eeg sixir taabanaya qalbiyada dadka reer Burco ahaa Burco ku dhashay 1941 marka hadal badan ayaan isku dheereen isaga aanu dhageysano wala leeyli jirayo inuu ooyo iyo waxaasi mamnuuc bay ahaayeen libaaxana wad ka warhaysay inuu ooyo qofku waliba raggu ilaahu ma afar jir noqdo oo inta mamnuuc bay ahayd iyo cabashada iyo jiljileeca iyo waxaan oo dhamma jirin gartay nolosha anigu dhexdeeda ku dhashay qofku yaraanta baad kaalin buu nolosha kaalin qofku daa ka sabah joogay nolosha cid kasta nolosha kaalin bay ku lahayd geeri baan raaxay aad baan u yaraa u malayn maayo daadeedu 6 jir ka weynayd kaanigu kaalintan kula waxay geelaasi markuu la arooriyo ceelka la geeyo inaan is hortaago waxay ku soo bandhigaysaa adiga runtaada iyo sidaad isu moogtahay aad war isaga hayna waxa la waxaad gudaa inaad jirin baad moodi aad isu qabtid iyo inaad buura ridi karto markaad iskarato adigu qofka tahay inaad buura waaweyn riixi karto saynu intaaba uga sii fahamno waxaynu dhageysano dadka cid bay isaga dhawaayeen waxay ka yidhaaheen markaad suugaantiisa iyo hadalkiisa iyo qudradiisa xagga hibada ilaahay siya dhinacan iska dhigto ونين هلادك ونين صبر بدن ونين أهدو كالقعل بدن ولي بدتك تلعسن أهدو دبع سوي ولي نين كلام بدن عامارك وحين هدراوي كوارك دو قفوا ينو واييريا انتو عرورو بعرورتا لما عيارو سو سعرورتا يجو كلو مقلا مركي عرورتا اكتيسي جوجت سيدو لا عياري هاد مدينو عرور نقضي دمرك هوينك قف uga dabacsan uga ixtiraam badan waligay maarak waxay dadka ka marakacaya abaal la u haya juhdiga iyo hawsha uu galiyay af Soomaaliga falsafada islaamka wada deganaanshaha uu ka xeel dheer yahay lagu astaysto abwaan gabaya ama shakhsiyad waa manhaj nololeed Soomaaliya oo dhameystiran ilaa alaankaatiyo waqti badan ka soo wareegeen haddana ereyadiisa ama gabayadiisa wali wayna dhiirigeliyaan anigu haddaba taan ugu jeclaa waxay ahayd jacay dhiig ma lagu qoray aniga qaybtaydii way dhammaatay adigaaga i daawanaya ayuu doorkaaga yahay gabayada ama midhaha ku saameeyey ama saameyn kugu reebay nagula soo wadaag commentka